بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى مقالكنا maanta waxaan ku arki doonaa application aad muhiim u ah isla markaana runtii ah application boqolkiiba ka anfacaya haddii aad tahay telefoon android qof sita wax fara badan oo aad koogayn applicationkan wuxuu ku siinayaa dhammaan full tricks ama xirfado aad u fara badan oo qaabka mobilka loo adeegsado qaabka meelaha secretska ee mobilka loo galo iyo wax fara badan runtii waa application aad muhiim u ah saan hadda idin sheegay waxa loo yaqaanaa mobile tricks wuxuu kuu sheegayaa dhammaan secrets sida telefoonka koodharka android ee aad adeegsan karto sida bayteriga telefoonka koodharka aad adeegsan karto cellularka iyo xirfado fara badan waa runtii application aad u baaxad weyn wax fara badan ku jiraan free ah aan wax u baahnayn internet runtii easy ah wax walbana isagu ku sheegaya oo information ku siinaya koodharka kood walba qaabka aad adeegsanayso wuxuu qabanayo iyo wax information dhameystiran oo ku saabsan application qalkan ayuu noo saaran yahay dabcan sidaynu caadada applicationka linkiga aad kala degi lahayd wuxuu noo yaala xagga hoose descriptionka iyo commentiga inta ka sarreeya dibinteedan applicationka la degin waxaa haboon applicationka si full ah inaynu eegno qaabka loo adeegsanayo iyo qaabka applicationku u shaqeynayo haddaba saynu u aragno kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta wakaalka inoo saara applicationku haddii aan furo mobile tricks sidan ayuu soo baxaya halkan sare waa tips for android xirfadaha android iyo mobile tricks iyo tan hoose oo ah secret codes halkan hoose waa more apps oo dabcan muhiimaha u linkiyo dheeraad ku siinaya haddaba intaynu gudbin applicationka si aan overview uga waxaan doonayaa qaybtan sectionkan aan galo sidan ayuu soo baxaya halkan wax muhiim ma yaalaan oo ah hadda halkan oo kale telefoonkayga modelkiisa ayuu aniga igu sheegayaa android versionka mobilkayga ku jiro sheegaya iyo homeka oo halkan aynu joogno iyo inta ka hooseysa oo ah inaad application create garayso iyo inaad qolada developerska la xiriiro iyo inaad privacy policyga xeerarkooda privacyga adeegto iyo inaad applicationka share garayso oo aad dadka la wadaagto haddaba intayna share garan karo waxaan doonayaa bal inaan ku horeyno tipska aynu eegno runtii tipsku waa runtii saa aragtaan aad bay u badan yihiin saa aragtaan markaan hoos tagayo bal haddaan eegno imika kala qor waa android useful tricks android xirfadihiisa aadka usefulka waa halkan oo kale waxaa ugu sareysa disable app notification xidh application gaara notificationkiisa iska xidh complete guard halkan oo kale wuxuu ku leeyahay tab app info antic show notification icon halkaa ka qaad waa dhammaystiran waa sida saxda application la isaga xidho notificationkiisa disable mobile data ka xidh application datadiisa limit ka dhig internetka uu isticmaalaya simka data add multiple google accounts gmail fara badan mobile geli iska xidh automatic update-ka mobilka waa runtii xirfado dhammaantood u baahan in muuqaal la-in ka sameyno laakiin aad applicationkan si fudud ugu baranayso haddaan kuwan hoos uga dego add internet speed indicator wuxuu leeyahay internet speed indicator uu soo gudbay saad halka aragtaan indicator in android phones iyo indicator in Xiaomi phones foonada magaca leh haddaan hoos uga dego weynkaan eego wuxuu leeyahay add ownership information geli mobilka macnaha qofka iskale information uu leeyahay geli markaa runtii isagaa step ku siinaya inaad akhrido ayuunba lagaga baahan yahay step by step raacdo haddaba applicationkan ma laga yaabaa in mobilada kala duwanaanshiyahoodu saameyn ku keeno may android waa android halkan hoose haddana dib uga noqdo android booklet tips for android iyo mobile tricks android operating systemka mobilkayga ku jira ayaa ku jira telefoonada Samsung Itel Tecno iyo whatever android waa nooca maqaruntii wuxuu ka hadlayaa applicationkani waa systemka maqaruntii systemkuna waa same marka laga yimaado applicationada ku duuban isaguna wuxuu ku barayaa waa systemka maqaruntii waa same telefoon kasta sido Samsung sido waxa waa inaad muhiimadiisa tahay telefoon system android ku jiro haddana kan eegno very few things to do waxyaalaha ugu horreysay tahay inaad samayso buu ku leeyahay waxa weeye add ownership information macnaha mobilka informationka qof kale ha geliyo buu jeedaa informationka enable device manager inaad device managerka enable garayso halka wuxuu leeyahay few important if you lose your smartphone you can track your mobile with this feature haddii mobilku kaa lumo dib baad mobilkaaga u raadin kartaa adigoo adeegsanaya device managerka ayuu ka hadlaya
set up your Google account sameyso, enable USB debugging ay ku leeyihiin sidaa u sameyso dhammaanaysa kutusaya mid walba sida loo sameynayo sida kutusaya marka runtii muuqaalka kaga wada gudbiyay hadin applicationka from start to the end isna ha sameeya laakiin waxaan doonayaa inaan meelaha ugu muhiimsan galo haddii aan imkoosto Google no commands aynu eegna bal codes wayna siinayo oo hoosa طبعا waxyaalaha ugu muhiimsan ka mid ah secret oo ah haddaba imka kor oo aan tago halka ay ku qoran tahay Google no commands waxa weeye commandada Google how old is Tyson where was lost macna waa information ku siinayo su'aalo ku weydiinaya device control muxuu taraa open screen.com take a picture record a video open Spotify maqaruntu waa productivity waxbuu ka weydiinaya maqaruntu waa Google no commands waxyaalaha mala Google ka ogaanaya inuu uga jeedo haddii aan hoos uga dego oo kale Google no using Google no okay turn off battery draining surfaces batteryga waxyaalaha mobilka markiiba aad ka urida surface-yada iska xidhbu kuleeyahay marka saad u xidhaysaa ku sinaya slide from top of your screen onto the bottom of your home screen will give you quick options. These options vary from ringtone to power saver, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, mobile data, and airplane mode. waxyaalaha batteryga telefoonka rida buu ka hadlaya marka saad ku sinaya qaabka aad xidhayso saad aragtaan oo halkan ka waramaya haddii aan hoos tagno get your lost phone back waa meelaha ugu muhiimsan telefoonkaaga lumay hel bal aynu ku dhufano wuxuu noo sheegay eegno wuxuuna leeyahay find your lost phone with this handy app application-kan fudud mobilkaaga dib ugu baar waayo application-ku waa kuma uu noo sheegay application-ka halkan sar kaga hadlaya wuxuu ku leeyahay xataa telefoonkaaga navigate to the setting add security ka tag lock screen ka tag owner information ka tag then simply tell information you want someone who phone your phone to know kadib information ka aad u baahan tahay qofka mobilkaaga helaa inuu ogaado soo hadii someone telefoonkaaga helo wuxuu ogaa telefoonka dil loo ku xidhan yahay dabcan waxaan ognaynaa la helin telefoonka magaciisa kaadhka ku jira iyo wax la mid ah maadaama log ku xidhan yahay oo aan ilaa log laga furo ama password la geliyo aan la ogaanayn marka halkan waxaad gelisaa waxay u muuqanayaan qof telefoonkaaga passwordka ka furin marka waxa kale halka gali information ka horta halkan kalena wuxuu noogu sheegayaa qaab email ahaan qaabkan tracking ugu sameeyay marka runtii application waxa muhiim ah inaad wada eegtaan marka aniguna saa u sii gelin maayo inaan meel walba sharxan sameeyo si macnaha application-ka u eegtaan oo aydan inta uga gudbin halkan kalena wuxuu leeyahay xirfadaha aad mobilkaaga malwares iyo waxyaalaha software-ada hackers ku isticmaalaan ee mobilada ku jabsadaan inaad saad uga ilaaliso samee balayno eegno waxayna leeyahay dhammaan sida mobilkaaga aad uga ilaaliso security-ga iyo in mobilkaaga la jabsado buu halkan kaga hadlaya marka runtii waa asset security waa muhiim waa meelaha ugu muhiimsan ay tahay inaad akhrido waxaan ku leeyahay koobaad ugu horreyn isticmaal application aad ku qarsoon tahay kan labaad kale ugu leeyahay application-ada permission-kooda ogolaanshiyaha aad siinayso oo very important ah halkan kuna ugu leeyahay antivirus isticmaal ayuu antivirus-yada ugu muhiimsan kadib muuqaalka hore ayaan ku soo marka xagga hoose description-ka ayaan dhigay qaar ka mid ah linkiyada ama yacni xagga top bar ka sare ee koonaha ayaan idin dhigi doonaa kuwa ugu wanaagsan antivirus-yada ugu wanaagsan ee hore kan lagu soo madhignay halkan oo kale waa password-ada iyo caching-ku leeyahay sameyn check your profile marka dhamaantood akhri inaad adigu akhrido ay muhiim tahay qaabka loo xidhayo iyo wax la xidhayo labadaba uu ku sheegayaa iyo muhiimadda uu leeyahay iyo sidoo kale haddii uu faa'iido khasaara ku leeyahay halkan oo kale ugu leeyahay notification management muhiimadda ay leedahay inaad notification-ka manage karayso halkan oo kale ugu leeyahay sida automatically aad ugu banayn karto storage mobilkaaga aad ugu banayn karto meel kayda oo mobilkaaga aad storage fiican oo kayda ugu banayn karto maqaarada application-ka dhammaan waa must in application-kan eegto haddaan section-ka labaad ee mobile tricks ka tago wuxuu ku leeyahay unblock pattern-ka iska xidh Wi-Fi hotspot screen magnifier screen ka soo dhaweyntiisa show Wi-Fi passwords password-da wireless-ka sida loo helaa block Bluetooth ka sida loo block gareeyo completely si screenshot loo qaado si phone-ka description loogu sameeyo si notification loo delete gareeyo
sida completely mobilka factory reset lagu sameeyo, sida mobilka screenkiisa loo duubo sida hadda muuqaalkan duubayno, sida loo maamulo mobilkaaga lagu maamulo laptop, sida androidkaaga loo maamulo mobilka, iyo sida loo tijaabiyo systemka mobilkaaga. halkan oo kale faylasha kaa delete gareysmay sida loo soo celiyo, iyo unknown facts oo waxyaalaha aanad ogeyn ama unknown facts sida loo ogaado. marka runtii muuqaalka intan ayaan ku koobsanaynaa. dee dabcan ka wada geeyomayna muuqaalkuna ma doonayno inagu dheeraado, sidoo kalena muuqaalka boring ka dhignayna ma doonayno caajis. marka runtii idinka ayaan idiin diinay inaad gashaan sectionkan u hooseeya secret codes, koodarkan adiga ayaa akhrinaya, mobilkaaga modelkiisa ayaad eegaysaa, tusaale Samsung sideeto dhammaan koodarkaasi waa Samsung, testing ku samee mid walba. haddii ay muhiim noqotana dabcan muuqaalkan ku xiga ayaan waxaan samayn doonaa anigoo section walba awoodda saari doonaa, maadaama hadda si guud aad sectionska ila garansaan. marka runtii muuqaalka intan ayaan ku koobsanaynaa, bal haddaad kala ku cusubtay inoo subscribe garee, muuqaalka haddaad ka hesheenay inoo like garee, haddii jirto cid muuqaalada noocan ka heshana fadlan la wadaag. intayna muuqaalkan ku xiga kulmi doono, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.